aqoonta iyo waayo aragnimadu waa dheefta iyo midhaha laga goosto barashada cilmiga ama aqoontu waa shayga keliya ee aadanaha haga kuna gaari karo guul adduunyo iyo mid aakhiro. Jahliga ama aqoon daraduna waa cudur xun kaas oo kuu horseedi karo inaad ka hadho bulshada inteeda kale. Cilmiga iyo aqoontu siyaabo badan ayuu qofku ku helaa, ha ahaato mid maadi, schooling system, mid waayo aragnimo, iyo kan ugu qiimaha badan ee waxyiga Allah subxaanahu wa ta'ala iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Cilmiga faa'iidada leh adduunka isagaad ku heshaa magac iyo sharaf, aakhirana isagaa ku gaarsiin kara janno. waayo cilmiga sharciga ah dadka leh waa kuwa Ilaahay u dhow wana marakacayna Ilaahay si dhab ah uga baqaan. Ilaahay ayaa quraankiisa ku yiri miyay siman yihiin qof aqoon leh iyo qof aan aqoon lahayn. Waxaan ognahay in dunidu maanta u qaybsan tahay qaybo kuwaas oo ka kala duwan wax kasta. wadamada horumaray iyo kuwa dib dhacay waxaa kala fogeeyay waa waxbarashada iyo dhaqaalaha, taasoo uga faa'iideysteen qaabkii loo baahnaa. sidoo ku cad Ilaahay Allah u naxariistay Abwaan Cabdullaahi Suldaan Timcade wuxuu yiri subagii cilmiga laga lulay bay sare u hensheene ragu soo hooyo soo wada mar oo aabba loo sumadiye sideena sagaal lagu dhale inagama sidig weynayn. wuxuu tilmaamayaa in wadamada horumaray ay dhaxleen oo ay dhidhimiyeen faa'iidada cilmiga iyo aqoonta, isagoo ka marqaati kacayo inay dadaaleen. waxbarashadu waa aasaaska nolosha, waxaana lagama maarmaan ah inuu qofku wax barto si uu u noolaado. waxaad ka dareemi kartaa xaaladda miyiga dadka ku nool. waxaa waalidka caruurtiisa uu baraa ugu yaraan sida wax loo tabco ama xoolaha loo raaco, maxaa yeelay waxay cadaynaysaa in uu qofku noolaan karin ilaa uu wax barto. wuu noolaan karaa, laakiin ma ahan mid uu asaga ku qanacsan yahay noloshiisa. qofku wuxuu nolol sharaf ah oo farxad ay ku dheehan tahay heli karaa marka uu barto xirfad uu ku shaqaysan karo. sidoo kale dal wuxuu ku hormari karaa oo kaliya marka ay jiraan dadkii horumarin lahaa. dadkuna waxba ma ay qaban karaan haddii aysan jirin aqoontii ay wax ku hormarin lahaayeen, waana taas sababta kaliya ee dalalka dib u dhigtaa. ogowna aqoontu waxay dhistaa guri aan tiir lahayn, jahliga ama aqoon daraduna waxay burburisaa guri sharaf iyo barwaaqo ay ku nool yihiin dadkiisa. ugu dambeyntii waxaan idin leeyahay aqoontu waa iftiin ama nuur, jahligu waa mugdi. aynu ku dadaalno waxbarashada si aynu u gaarno horumar loo riyaaqo iyo bulsho caafimaad qabta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.